in that old-fashioned reception, all of them were sitting here. When I came in, they were whispering that he's a Muslim boy. daawadayaasheena qiimiga badan waa mar kale iyo barnaamijyada aad uga barateen saxafi films aynu kaga hadalno aktarada dalkaasi India u dhashay. daawadayaal barnaamijkan waxaanu kaga hadli doonaa jilaaga caanka ah ee dadka taqaanaan ee Badshaah of Bollywood, King of Bollywood, boqorka Bollywood waa Shah Rukh Khan ayaa waxa uu ka hadlay arrin dad badan ay ku noqotay lama filaan. haddaba arrinta maxay tahay uu ka hadlay jilaaga caanka ah ee SRK oo Shah Rukh Khan. jilaagan sidaad wada ogtiinba waxa uu qabaa gabadha waadka uu jecel yahay ee Gawri oo ah gabadha nasiibka u yeelatay in ay lamaana la noqoto jilaaga caanka ee King of Bollywood. haddaba jilaagan iyo xaaskiisa waa dad aad isu jecel, waa laba lamaane oo waqti wanaagsan soo wada qaatay, haddana ku wada jira waqtigoodii kii ugu wacnaa. haddaba jilaagan ayaa waxyaabo badan ay saxaafadda ka weydiisay maadaama dhanka madhabta diinta aysan labadoodu isku mid ka ahayn. Shah Rukh Khan uu yahay shakhsi muslina, ayaduna ay tahay gabar haysata diinta Hinduuga. haddaba labadan jilaa waxay isku hayaan ubad badan, inkastoo marar badan uu saxaafadda ka jeegay jilaagan caanka ee Shah Rukh Khan in ubadkiisa ay xor yihiin hadday rabaan ay qaadan karaan diinta xaaska uu qaba ee Hinduuga, hadday rabaan ay qaadan karaan diinta muslimka oo ay labadaba u dhaxeeyaan, balse marka loo fiiriyo dhanka diinteena islaamka ma ogola in laba diin la isku qaato. haddaba jilaagan ayaa marar badan waxa asaga iyo xaaskiisa Gawri ay isu raaceen xafladaha oo ay ka wada qayb galeen. wariyaasha saxaafadda ka howlgala dalkaasi India mid kamid ayaa waxa uu weydiiyey in xaaskiisa ay ka mid tahay aktarishooyinka aan iraahdee marwooyinka ay qabaan aktarada shirkadda Bollywoodka ka howlgala tan ugu quruxda badan, oo ay tahay qof marka la fiiriyo qaabkeeda ay tahay qof xataa jiliinka wax ka gali karta oo aad moodid muuqaalkeeda inay dad badan soo jiidan doonaan. Shah Rukh Khan ayaa si qosol leh waxa uu ugu jawaabay, waan ogahay xaaskayga inay qurxoon tahay, dabeecad wanaagsan tahay, balse waxaan jeclaan lahaa oo aan aniga iyo ayada aan marar badan ka wada hadalnay qaabkii aan indha shareer amaba niqaabka aan ugu gelin lahaa. hadalkaasna wax kale oo lama jeeda ayuu yiri, quruxdeeda waxaan rabaa in ay aniga kaliya igu koobnaato. haddaba arrintaasi uu ka dhawaajiyay jilaagan caanka ee niqaabka amaba indha shareerka iyo halka ay kala joogaan Gawri Khan iyo Shah Rukh Khan marka ay noqoto madhabta cid waliba waa ay ogtahay, balse waxaa ka muuqata jilaagan in uu la jecel yahay xaaskiisa in ay u soo dhawaato dhanka diinta islaamka, balse hidaayada ilaahay ayaa iskale oo qofka hanuuniya, balse qofka kale ma qasbi karo. daawadayaal Shah Rukh Khan waxaa lagu tiriyaa inuu ka mid yahay aktarada dhanka masayrka marka ay noqoto aad uga gubtaa oo aan jeclayn in marwada isaga uu qabo ay fanka ku jirto, balse atarishooyinka kale ee la daadihinaya filimaanta ama hal la qabo ama yaan la qabine jiliin wanaagsan kusoo bandhiga. su'aal markii laga weydiiyey jilaagan oo la yidhaahdo adiguba ma jeclid in marwadaada ay qaabkaas oo kale filin ku jishee maxaa ka waday, waxa uu ku jawaabaa ninka jecel in ay naagtiisu qaabka kan oo kale aysan filimaanta ku jilin waa inuu gurigiisa ku haystaa. haddaba daawadayaal barnaamijka aynu kaga hadlaynay jilaagan caanka ee Shah Rukh Khan oo aad wada taqaanaan oo ka sheegay afkiisa in uu jeclaan lahaa xaaskiisa inay xirato niqaabka amaba indha shareerka dumarka